asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada waraysi gaar ah oo aanu diiradda ku saari doono howlgallada xoreynta dalka iyo ciidamada dalka dib ugu soo laabtay ee tababarka sare kusoo qaatay Eritrea oo madaxweynuhu qaranku uu sheegay in ay markaasi qayb ka noqonayaan howlgallada xoreynta dalka oo khawaarijta looga xoreynayo deegaanada iminka yar ee ay ku harsan yihiin. waraysiga waxaa marti inoogu ah isla markaasna stuudiyaha nala jooga Sareeye Guuto Cabdullaahi Cali Caanood, afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Afhayeen soo dhawo marka hore howlgallada ka socda dalka guulo waaweyn waa laga gaaray ilaa hadda deegaanada ay kacdoonka shacabku iyo ciidamada qaranka isu kaashanayaan. taasi waxay qayb ka ahayd ballanqaadkii madaxweynuhu uu fidiyay oo ahaa in deegaano iyo degmooyin badan waqti yar gudahood la gaarayo oo dawladdu ay dadaal ku bixinayso. arrinkaasi ballanqaadka shacabka in qayb ka mid ah ay fuleen maxay uga dhigan tahay bulshada Soomaaliyeed? بسم الله الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنت مدحونها جمهورية دو بلنقاديو شعب كالصومالي السمية بلنقادية صحة كمدها سوعلين تعيدا مدي إريتريا كمغنا سوعلين تعيدا كإريتريا كمغنا ما هين يونت عيدنا وتابر لو ديري أو اسكسو نقضي إن بدن أنت مغنايان إن بدن بتابر لو ديري صار نقنيسي waxay ahayd ciidan tiro badan oo isugu jira noocyada ciidanka dhulka iyo badda oo tababar loo diro ilaa 5 kun gaaray. ciidankaas waxay maqnaayeen muddo aad u badan oo waqtiyadii loogu talagalay askari dhibbo inuu kaga baxo inta bilaabo oo kaga baxo aad uga badan waa ilaa 9 bilood. sarkaalkan waa ilaa 2 sano leeli sarkaal markuu qofku galo 2 sano xidgud ku soo qaata way ka badnaa 4 sano ahayd. 4 sano ciidamadaas xaaladooda kulligood waa la wada soconaa. dalka waxay gelisay wareer fara badan waqtigii dawladdii hore ay jirtay mudaharaadyo badan baa ka dhacay aragti siyaasadeed oo khatar ah oo weyn baa ka muuqday. runtii marka ma ahan ciidankan ciidan caadi ah oo inta kooras loo diray iska soo dhamaystay maaha. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya xafiiska imaan waan dhageysanayay iyo wixii waajibaadkayga koobaad waxa weeyaan inaan ciidamada soo celiyo dalkana xoreyn. runtii madaxweynuhu ballanqaadka shacabka Soomaaliya u sameeyay ka soo baxay. madaxweyne jamhuuriyadeed oo ilaa 5 6 7 jeer ku noqonaya dal waa culayska iyo xanuunka faraha badan oo ay qalbigiisa ku hayaan ciidankaas iyo shacabka Soomaaliya hooyooyinka iyo aabayaasha ooyahaya xanuunka ku hayaan bay waxay ahayd marka madaxweyne uu meel aadayo mar un buu aadaa ama 2 jeer buu aadaa imsa jeer buu ku noqday waxa weeyaan waa culayska ay leedahay arrintaas iyo waajibka ka saaran oo u fahamay qaranka iyo ummadda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed. arrintaasi marka arrimahan oo kale oo madaxweynuhu uu guuleystay madaxweynuhu uu guuleystay iyo dawladdiisu waa guuleysteen ballanqaadkii ka soo baxay. marka guushaan oo kale ay dhacdo ma aha inay iska noqoto madaxweynuhu waa baxayo ciidanka wuu keenay ma aha. madaxweynuhu juhdi buu dagaal buu galay warar buu qaaday wuu guuleystay. waxay ahayd shacabka Soomaaliyeed dhammaan gobollada degmooyinka in banaanbax taageera laga sameeyo oo madaxweynaha iyo dawladda looguna hambalyeeyo laguna taageerayo oo ururada bulshada ay hambalye ka soo jeediyaan oo ay ka soo jeediyaan ciidamada qalabka sida hambalye ka soo jeediyaan oo gobollada wakiilada gobollada iyo degmooyinka ay hambalye ka soo jeediyaan oo guulaha waaweyn oo heer qaran oo saan oo kale ah aysan ku dhaxmalmin guul maalin la gaaray oo kale ma aha mid maalin la gaaray ma aha. midda kale howlgalka al-shabaab oo waxyaabaha uu ka ballan qaaday ah way socotaa howlgalka guulo fiican waa laga gaaray. waayahay si wanaagsan ayaad uga hadashay tilaabadaasi geesinimada leh ee ay dawladdu qaadatay madaxweynuhuna ku hogaamiyay balse dad badan waxay isweydiinayaan heerarka kala duwan ciidamada qaranka horey looguma baran gaas waxa loo yaqaano arrinkaasi bal sharaxaad ka bixi. madaxweynuhu shalay waxa uu ku dhawaaqay afhayeene in gaaskii koobaad ciidamadii ka imaaday Eritrea ay diyaar yihiin oo ay galayaan howlgalka xoreynta dalka. maxaa loola jeedaa gaas? ciidanku wuxuu leeyahay nidaam loo dhiso oo organico asaas leh gucun ilaa iyo qayb inta Soomaaliya u dhisnayd. intaas waxay ka badan waxa jiray wax la kulmisku waa qaybo badan oo isu yimid oo dagaalkii 77 ciidamadii abuurmay bay ahaayeen. gucunkaasu unugu wuxuu ka bilowdaa ilaa 19 qof. unugaas koox baa ku xigta ilaa 30 qof ka soo qaaday
horin baa ku xigta, urur baa ku xigta, guutaa ku xigta, gaas baa ku xigta. ciidamadii Soomaaliya way lahaayeen gaasas, qayb kasta waxay ka koobnayd 3 gaas oo infantry ah iyo gaas madaafiic iyo taangi ah. innaga laftigeena 2011 waxaan Muqdisho ka aasaasnay 2 gaas oo min 3 guuto infantry ah. gaas ana taliye ka ahaa, gaaska koobaad baa la dhihi jiray, waa gaaska ka dagaalamaya laga soo bilaabo dekadii hore ilaa iyo dabka gobolka Banaadir, ka bacdina xoreeyay ilaa iyo Mahadaay gaaray, dhanka kalena Shabeellada Hoose gaaray ilaa iyo Leego. gaaskaas oo ahaa 4 guutaan ahay ana taliye gaaska ahaa. markii dambe bacda ma qaybaha aysan gaasas lahayn waxa 2 gaas buu ahaa, gaaska koobaad iyo gaaska labaad baa la dhigay. gaaska koobaad taliye ka ahaa, gaaska labaad in la yiraahdo General Cagay baa ka ahaa. laakiin kadib ma shaqeyn jir labadii gaas adigu taliskayga markaas joogay gaasaskii wuu ka baxay, guutooyinkii waa hal qayb isaga dhigay. laakiin nidaamku waxa weeyaan guutooyinku markaad kor uga kacayso inaad gaas noqoto, gaaska markaad kor uga kacaysana qayb waa inay noqoto sector. cadadka gaasku marka infantry la yiraahdo waa 3 guuto, guutadiina waa 3 urur. waa ciidanka lugta, markaan ka lugta dhulka ma aha ciidanka lugta waxaa la yiraahdaa ciidanka lugta gawaarida gaashaaman sida kasbiiradan kale ciidanka lugta ku dagaalama. marka gaasku saas 3 guuto oo saas u dhismo waxaa lagu xoojiyaa 2 urur oo taangiga iyo 2 urur oo artillery ah. hadda ka badan heli karto guuto taangiga, guuto artillery ku waxayso iyo helicopterada ka sii fiican, taasina waa markaan insha Allah ka baxano yaan waxay. laakiin gaasku waxa weeyaan waa 3 guuto oo infantry ah, ciidanka lugta ah oo la isu keenay. ciidankaas lugtu waa ciidamada kuwa aasaaska u ah, waa kuwa xaqiijiyo guulaha dhabta ah ee meel la qabto. diyaaraduhu ma xaqiijiyaan, madaafiicdu ma xaqiijiso, taangina ma xaqiijiyo. laakiin magaaladan haddaad soo gashay in guri kasta aad hayso nin soconayo qori wata xaqiijiya. marka ciidanku waa sidaas, waa 3 guuto weeye. way taliye afyaane in ay diyaar yihiin ciidankii markaas madaxweynuhu uu shalay ugu magac daray ilaalada qaranka gaaska koobaad ee Duufaan. taasi ma tahay dhamaadkii al-shabaab in ciidamadaasi tababarka sare Eritrea ku soo qaatay gaaskooda koobaad buu diyaar yahay? horta gaaskan ciidankan la tababaray waxay aad u haystaan tababar aad u sareeya. tababarku waa 2 qaybood, qayb daati ah iyo qayb macnawi ah. qaybta daatiga waxa weeyaan waa midda physically wax la barto, muuqaal ahaan tabta dagaalku aad barato, weerar, duulaan, dagaal iska hor imaada, sahan, magaciisa, hayaan, kaynaan, ka soo qaado xataa qafaalato af Soomaali markaan kugu sheego. mid walba waa maado gaar ah oo gaarkeeda loo barto, buugteeda leh. toogashada iyo qoriga iyo waxaas iyo aad bay tababarkaas ugu sareeyaan. Eritrea tababarkaas way leedahay. Ethiopia iyo Eritrea maadooyinkaas xagga toogashada iyo tababarka aad bay ugu sareeyaan ciidanka. wana Eritrea mudnaanta ka wada siisiya. qaybta macnawiga ah oo waxa jirta aan lagu qaadan dalka shisheeyaha ah oo markii Russia ama Masar ama Italia ama inooga yimaadaan ciidan ka soo noqdaan tababarkaan la siyaa jira. waxa kamid ah barashada xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed. maltii ciidamadan hadda Eritrea waa hadda madaxweynaha ballan qaaday wuxuu yiri 2 bilood yaanu tababar siinayna. tababarka la siinayaa waa mid oral ah, ma aha mid baraatikada ah. tababarka way yaqaanaan. maxaa la barayaa? waxaa la barayaa xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida waa maadadaas waxaa la barayaa askariga Soomaaliyeed hadduu gabar ku soo dambiga ka ilaamanaya, hadduu isbaaro dhigta dambiga ka imaanaya, hadduu qorigiisa gato dambiga ka imaanaya, waajibka dagaalka loo dhigay hadduu fulin waayo waxa ka imaanaya, qoriga xanaanada dharkiisa iyo jirkiisa iyo wixii iyo hubka loo dhiibay oo lagu amaanaysto ummadda Soomaaliyeed ay leedahay ku amaanistay hadduu dayaco ciqaabaadka ka imaanaya. isku day dil hadduu sameeyo xataa qof ku fiiqo kula ciyaaro dunuubta ka imaanaysa. hadduu furuntiisa dagaalka isaga soo baxo dambi ka imaanaya. hadduu amarka taliyihiisa diido dunuubta ka imaanaysa. xeerka ciqaabtaas ciidamada qalabka sida Soomaaliya u taala. hadda waa loo bilaabay ciidanka. waa loo bilaabaya dabcan kolley waa loo bilaabay, haddaan loo bilaabin waa loo bilaabay, haddii kale waa loo bilaabay. midda kale jirta disability ciidanka Soomaaliya. madaxweynaha fatradii hore oo madaxweynaha ahaa asaga saxiixa ogolaaday buugga disability ciidamada Soomaaliya. waxa la yiraahdaa buugga disability wuxuu ku tilmaamayaa kala sareynta ciidanka.
taliya unug taliya koox taliya saraakiil xigeen alif leey dab leey baa jirta si waa la isku xukumaa wuxuu ku tiraya ganaaxyada ciidanka ninka khalad garsee ganaax jaranjarada uu leeyahay jaranjarooyin badan baa ganaaxo kale leeyahay taliya kastaana awood xadidan buu leeyahay shuruucdaas la baraya waxa kale oo ka sii muhiimsan wadaniyadii waa 5 maado weeye 5taas kama kala dhacaan ninkan askariga dagaalamaya wuxuu in la baraa xaqa uu ku leeyahay dalkiisu xaqa uu ku leeyahay calankiisu xaqa uu ku leeyahay dawladdiisa inuu difaaco xaqa ay shacabka Soomaaliyeed ku leeyihiin waa inuu asagoo u soo arka mas'uul xaq ka saaran yahay ilaalinta xuduudaha qaranka fulinta awaamirta madaxweynaha iyo dawladda ilaalinta shacabka Soomaaliyeed oo hayin ah waa inuu shaqeeyaa intooga shakaliya soo bartay iska faltamay inuu noqdo lama rabo maskax laga dhiso qol duruustaas kaasna ka soo bax waa waxa dadka wacyigelintaas askarta ciidanka wala bara qayb diiniha jirta waxaan la dagaalamayna khawaarij waa in askarta la baraa kuwan inay yihiin kuwa jannada ku gal lahaayeen waa in askari la baraa inuu nin muslima weeye horta ilaahay ku xirmo salaada tukado oo nadiif noqdo waa in askari la baraa balwadaha iyo jaadka iyo daraaga iyo qashinkaas oo dhan inay yihiin cadow ku yihiin noloshiisa diintiisa iyo dalkiisa waa in la baraa nin daraag iyo qashin isticmaalay dal ma difaaco dadkan dhalinyaro weeye dawladda aan u dirnay maadadeedii bay soo bartay inaga maadadeena hartay inta ugu yar lagu bari kara 45 casho weeye seminar degdeg ah oo maalintii galanka hore 4 xiso la siiyo 2 xisana galanka dambe la siiyo maskaxdaana wixii lagu shubay qaadataa madaxweynuhuna wuu gartay anu runtii kale uma sheegin qalbigiisa ku jirto xanuun badan bay ugu haysay oo waxaan qaanaa dhalinyarada timaada inay tan u baahan yihiin kale madaxweynuhuna waa soo ku dhawaaqay ilaa 2 bilood 60 casho in korosaas sameeyay anaguna insha Allah macallin baan ka noqon doonaa waayahay afayeen ciidankan waxa uu madaxweynuhu ka dhawaajiyay dhowr marna ka hadlay inay tababar heer sare soo qaateen yihiin dhalinyaro u badan kuwa wax bartay xirfado kala duwan leh qaybo kala duwan ciidamadu ay leeyihiin maxay ku soo kordhin karaan ay kula tahay si guud ciidankan oo guud ciidankii ugu horeeyay maaragtay cadadkaas leeg ee tababar dalka dibadiisa ku soo qaatay maxay ku soo kordhin karaan Soomaaliya amnigeeda isaga ciidankan horta waxa loo tababaray waa tababar military waxa soo qaateen waajibaadka fuliyana waa waajibaadka military uu fuliyo waxa noogu daranna maanta oo haystaana waxa weeyaan waa argagixisada al-shabaab oo u baahan ciidan tareen tababar fiican leh oo la dagaalama jiitankii al-shabaab sii jiitami lahaa iyo dhibaatada nagu soo hayn lahaa insha Allah way soo gabagaboobaysaa ciidankan wuxuu dadajin doonaa fulinta waajibaadkiisa la siiyo yuu degdeg u xaqiijinta waajibaadkiisa waxa weeyaan waa ciribtirka iyo baabaa khawaarijta iyo cadowga ummadda Soomaaliyeed laano meelaha ay ciidan kulama oo ciidanka tababarkiisa iyo hubkiisa uu aad u fiican yahay ciidanka waxa la yiraahdaa ciidanka tababarka badani wuxuu sahlaa burburka cadowga hubka badanina wuxuu sahlaa hubka fiicanna wuxuu sahlaa burburka cadowga ciidanna waxa dhisa aqoon iyo qalab aqoontiina way wataan lagu dagaalami lahaa cadowga lagu dagaalami lahaa hadda anagu diyaarada iyo duqeyn iyo duuliyaal laga maraa maraakiib iyo infantarigooda shaqada ku qabsanayaan wayna dadajinayaan oo hadda waraaq dambe ma sii jiri doono waxaan rajaynaynaa 6 bilood dambe soo socota inaanu ilaa iyo raaskamboni ku soo dhameystiri doono insha Allah ay dhameystiri doonaan ciidankaas arjeen rag dhalinyaro ah oo u firfircoon ciidna u qaba dalkooda inay xoreeyaan aabahood iyo hooyadood ka xoreeyaan waana ciidan integrated ah isku dhaf ah oo laga keenay waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya anagu labaas aan naqaanay hadda laalaantana soo baxday laakiin aan ku sida kale hadaan u dhahnay raaskamboni laga bilaabo ilaa iyo Zaylac ama lagu haya yay ka kooban yihiin ciidankan 18 gobol dalka ka yimaadeen ciidanka saas lagu sheegay national army hadda masha ciidan qaran oo noocaas laano wax meel gaar ah hadii markaas baahidii wixii hore oo aan ciidanka hore ku dagaalameynay dad ciidan kasta deegaankii al-shabaab ba iska qabsaday dawladuna ciidan qaran oo dawlad hore ka dhaxashay ma jirin ciidankii marka deegaankaas dagaalamay ayaga laftigooda integrated laga dhigo la isku dhafo gobolada oo laga keeno iyo keenid qansa absolutely wixii muddada faraha badan aanu la rafaadaynay qarannimadeedii xornimadeedii iyo dawladnimadii iyo masiirka ummadayadii baabi'iyay oo rajabeelka dhalinyarada iyo dadka ay ku riday oo badaha iyo saxaraga ay ku dhamaanayaan inuu gabagaboobo oo khayraadkeedii barwaaqada la soo baxno oo dawlad qaran lagu heedo ku taagan noqono ya insha Allah rajaynayna ciidankan aanu hormuud ka ah
iyo ciidamadii hore oo dagaalamayay khayr allaha siiya aad waajibaad fiican bay guteen haddana meel fiican bay marinayaan hawshooda isla arintaasi dad badan oo shacab ah ayaa is abaabulay oo kacdoon sameeyey ciidamada qarankuna taakula weyn ka heleen guulo waaweyn bay gaareen deegaano badan iyo degmooyin khawaarijtu ay dhowr iyo 10 sano haystay ayay xoreeyeen dareen noocee ah ay ku abuuraysaa ciidamada howlgalka hore ugu jiray iyo dadka shacabka in dhiigan cusub ciidankan caaboon firfircoon tababarka sare qaatay cadadkooda u badan yahay howlgalkaasi qayb kala noqdaan waxaan rabaa horta dadka aan u sheego dagaalka wuxuu leeyahay theory cilmi ah oo la yiraahdo waligaa haniyeysan cadowgaaga inaad burburisay niyeyso inaad hadda burburinayso haddii aad 100 ahaayo 99 dishay 10 kale insa kaa guulaysan ku dadaal unug ciidan haddaa weerarayso cadowga meel fadhiya koox niyeyso 30 inaad dilaysid 10 ha niyeysan si aad u cirib goyso weeye horta waa inaan niyeysanaa dagaal bilowgiisa aan nahay dhamaystirkiisa inaan nahayn bilowga al-shabaab aan la dagaalamaynay inaan hadda bilownay oo aan bilownahay oo ciidamadu si fiican hadda ay u bilaabeen bilowgiina uu socdo kacdoonka shacabka Soomaaliyeed oo dhibaatada faraha badan iyo cadaadiska faraha badan iyo dhibaatadan qaraxa keentay ay ku sameeyeen oo kacayna maanta waxaan filayaa inay u fududaanayso waajibaadkooda inay degdeg u gaaraan laano ciidan cusub baa u yimid oo tababar fiican iyo qalab fiican wata rajadooda iyo moraalkoodana aad buu u fiicnaan doonaa marka ay la hawlgalaan waxaan rajaynayaa inaasan ashaab nagu sii waraaqi doonin waraaq ma taqaanaa Soomaaliga marka neefka la gowraco lugaha sii ka furfursiya fikfigda ma jirto inuu degdeg aan uga baxano oo aan dhamaystirno yaan rajaynaya dalkeena ka saasna ku noqdo shacabka Soomaaliyeedna moraal iyo niyad wanaagsan ay ka helayaan laano waxa weeyaan waxa muuqanaysa rajadii nabadgelyada rajadii qarannimada rajadii mustaqbalka iyo nolosha iyo dawladnimada wayahay afhayeene dabcan waxaan iminka u jaleecaynaa dhanka iyo howlgallada socda waqtiyadii ugu dambeeyay gobolka Shabeellaha Dhexe howlgalkii ka bilowday dhankan iyo qorax u dhaca waxa uu gaaray ilaa cirafka kale ee gobolka Galgaduud deegaano badan oo Galgaduud ah ayaa ciidamadu gaareen oo xoreeyay ilaa iyo ciidamadii aadan yabaal xoreeyay faahfaahin bal naga sii xagee la isla maray ciidanku uu shaqeeyay una dagaalamay nimankan al-shabaab ah jid kaste iyo tuulo kaste iyo meel kasta laba qoys oo Soomaaliya joogtaba calan bay ka surteen unug ciidan ay dhigteen ama 5 ama 4 haddii shacabku isku dayaan kuwaas intooda kale soo gurmanaysay oo wax shacabku uga baqayay bay kamid ahayd ayagoo inay sii jiraan waxyaabaha sababtoo ahayd bay ahayd hadda shacabkii baa kacay oo la dagaalamay waxaan ku sheegayaa Galgaduud dagaalkeedu waa noo dhiman yahay wasaaradda gaashaandhigana way ogtahay Galgaduud shaqada aan ka qabanay way yar tahay waxayna rabtaa degmooyinkeedii oo dhan cadawga gacanta ku haya ceel dheer ceel buur dalkii sheeg xarar dheer gal hareeri kulli cadawga gacanta ku haya inaan xoreynay u baahan tahay ciidankaygaan sii socdana si tactic ah qurux badan buu u socdaa oo waxa keenaya inuu saas u socdo oo sababaya in cadawga xaqiisa dambe uusan ka dagaalamin intay geedaha galaan isa dhow baaburka dhaawaca ku siidaya ismiina u dhigin baaburka saadka ku keenaya ismiina u dhigin adiga aysan gadaal ka weerarin waxyaabahaas waxay keenayaan saan tartiibta hadda loo socdo ciidankan wuxuu dadajinayaa aagaga kale oo aan wali si xoog ah dagaalku uga bilaabin degdeg in u soo jafaan oo loo soo dagaalaan shacabkuna waxay fiirsanayaan ciidan ay daba socdaan oo raacaan qoryahooda way haystaan laakiin ogsano u batalyan xooga dalka meesha ka socdo guuto shacab hubeysan baa raacaysa waa sahan waa xogta ku keenayaan waa ku dhabar jabinayaan waa kulli weerar bay ku sameynayaan ayaguna way istiqaanaan oo nin maalin shaab la soo qadeeyay inuu ku dhex gabado may ogola ka og yihiin ayaga dhibaateynayo waxa tilaabada kale oo guuleystay dadweynuhuna in badan ay maaragtay ay aad ka ula dhacsan yihiin waxa qayb ka ah inaysan jirin ilaa hadda howlgalladii Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ka bilowday deegaan ama degmo ama tuulo ama meel la qabtay oo laga soo laabtay ma absolutely si qurux badan uu socdo ilaa hadda meel laga soo laabtay ma jirto laana waxa weeye howlgalka markuu qorsheysan yahay oo ciidankii xoogga dalka daraawiishta dowlad goboleedka iyo shacabka Soomaaliya ay wada socdaan hal amar oo taliyaha guudana laga qaadanayo wada tashina howlgalka lagu fulinayo horta lama jabo degdeg iyo sheeg ayadoo aan la qorsheysan koox iska jidbooto yaacda iyo waxyaabaha khalasaaraha inta badan keenta laakiin hadda si qurux badan bay u socotaa deegaanadii la qabtay si fiican baa loo nadiifiyay
dadka Soomaalida ah oo iska degdegaan oo maxaa loo daahayaa maxaa loo dibdhacaya bay leeyihiin ma ogtahay laakiin inaad degdegto aad guul daraysato waxa ka fiican inaad tarsiibsato oo aad guulaysato istaraatiijiyadan kale oo militariga oo qorsheynta ay qorsheysteen wasaaradda gaashaandhigu taliska xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qaabka u dagaalamayana waa si istaraatiiji ay qorsheysteen way waana qurux badan tahay waayahay waxa la tabiyay la arkayna in shabaabka wixii loo filayay ama khawaarijta waxa laga filayay awoodda inay leeyihiin ay meesha ka baxday oo maaragtay ilaa hadda deegaanadii ay ku waaweynayeen ay ku dagaalami waayeen oo ay isaga carareen sida ay sheegtayna ay yihiin kuwa firxad oo hadba meelba ku jooga wax 10 iyo wax la mid ah dagaalkan sida ay ugu jabeen markaad qiimayseen ma isleedahay waa ay dhamaatay shabaabkii dagaalka foolka foola la geli karay ciidamada qaranka markaan iminka tusaale ahaan u eegno howlgallada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ka dhacay iminkana galgaduud galay الشباب dagaalkoodu maba ahanba inuu ka hor yimaado الشباب laba meelood isku dayeen difaacdan labada meeloodna ku jabeen wixii qorshahaas ka dambeeyay waa inay hadba jid ku galaan oo hadba geed hoos ka saarto hadba magaalada marka ku soo dhawaatay ay ka guuraan jidka ay miina ku dhigaan taasna waxa weeyaan waxa baabi'inaya waxa weeyaan mawjada dadka awal ayagu waxa weeyaan ciidamada marka anigu dadka hawlgal jira dagaalami jiranahay shacabku ma ogolaan noo sheegaan wala gowracayaa uu dhihi jir marka meelahan soo dhaafnay ma arki jiray oo ku jira ama baaburkii naga noqday oo dhaawac qaaday miina u sii dhiga hadda shacabkii waa kacay geel lagu gaban kara ma jiro ashaabana wuu jabayaa mar dhowna waxaad bilaami doonta isu soo dhiibistooda iyo fakashadooda kale hadda fakashada ku bilaabato qaar badan baa ka fakado guryahooda iyo reerooda aaday laakiin isu dhiibiddu way bilaamaysaa aniga hal ma dhahayo tacticada militariga iyo operationka iyo istaraatiijiyadooda ma ogola in la yiraahdo cadow baan baabi'inay ilaa iyo madaxda u sareysata keenta adal dashid deegaan kasta oo ayaga aad ku filaysana aad calanka ka suratid lama yiraahdo waa baabada niyadaadana lama galiyo in cadow nool yahay aad burburinayso ku socotaa la galiyaa si diyaar garowgaaga iyo dagaalkaaga iyo juhdigaaga uu u badnaado laakiin waxaan ogsoonahay dagaalka jabhadaha dowladda waa weyn oo xoog badan yaa jabhaduhu burburiyaan maxaa keenaya waa dagaal aan abaabulnayn oo kaaga imaanaya hadba dhinac marka sida hadda dowladda kaliya hadday ahaan lahayd dhib weyn baa lagala kulmi lahaa dee awalba dowladda ciidan kaliya dagaalamayay dhib badan baan kala kulmi jirnay shacabkuna waxba nooma sheegi jirnay hadda waxa weeyaan geed kasta iyo deegaan kasta qof Soomaaliya ha jooga qof kasta Soomaaliyana waa kay dhacayeen waa kay dilayeen waa kay kufsanayeen waa ka gowracayeen waa midka aabihii ilmahiisa wiil la'aanta walaal la'aanta dhigeen qof walba waa ku sheegaya mid xabada ku ridaya iyo mid sahan ku ah marka taas waxay ku sheegaysaa cimrigii inuu dhamaaday cimrigooda inuu dhamaaday oo mar dhow ay gabagaba yihiin oo insha Allah bilaha soo socda ay sii wiiqmi doonaan xoogga cadowguna inta badan waa marka hore marka dambe moraal xumada dhaawac bata dhimashada oo badata moraalka xumaada nin walba oo gaarkiisa u fakara soo noloshda u maareyn lahaa halkaasi taliya afyaane galgaduud waxaa la soo wariyay iyo mudug deegaano ka mid ah in khawaarijtu ay isdagaaleen oo ay isaga dileen ilaa tira 10 ka badan dhowr marna dagaalkaasi u dhacay arintaasi dabcan wasaaraddu gaashaandhiga way la socotaa maxaa xog ah oo intaasi dheer oo aad kala socotaan maxaa sabab u ah in shabaabka dhexdoodii ay iswaarsadaan iyadoo howlgallo kale culus ay ku socdaan horta annagu shacabkan ka maqalnay shabaab dhexdoodii isxabad isla dhacaya sawirkoodana maana arag annaguna ciidankuna ma arag laakiin ay isdagaalamayaan guuldarrada markay timaado adaa guuldarrada noogu wacan iyo adaa noogu wacan iyo adaa meel la soo dayacay awalna shaqadooda maxay ahayd isu dulqaadasho ayaga waa mamnuuc isa saamaxadna waa mamnuuc marka ninkii laga soo ciidankiisa la soo jabiyay inay gowracaan shan kale u hiiliso laftooda qabyaaladuna soo dhex gasho gurub soo dhex gasho islaayaan guuldarrada keenaysa ku dhacday marka intaas waa ku imaanayaan laana waxa weeyaan haddii intaad dagaal gasho aad soo jabto waxa la yiraahdaa taliye hadduu khaldamay taliye ma khaldama la yiraahdaa taliye ma khaldama waa tiiri xagga militariga dagaal baa gashay waa dadaashay waa lagu jabiyay maaha maalba guusha adiga iskama haysta mugtaa waa lagu jabiyay adinka waa soo dadaalay mar labaad ciidan u abaabul hawl ayaga noocooda saas maaha ayaga ismana saamaxaan
isumana dulqaataan xukunkooduna dil buu ka bilowda dilna waa ku dhammaada ayaguna waa isku fuliyaan shacabka Soomaaliyeed waa ku fuliyaan taas waxay keenaysaa jabak faraha badan oo ku dhacay burburka ku dhacay in dhexdooda ay conflict ka bilowdo waa qiyaasayna intaasi ka badan baan dhici doonta waxaan arki doontaa hadda ka horna way arag baan ku ahayn amiiro laga soo qabanayo wadamada dariska ah oo siyaacayo cararaya oo xuduudaha raba inay ka gudbaan insha Allah mar dhow arki doono ugu dambeyntii fariinta guud adigoo xambaarsan wasaaradda gaashaandhigga aad u dirayso shacabka Soomaaliyeed ee kacdoonka ku jira iyo kuwa hadda isbaabulaya iyo ciidamada qaranka ee wada howlgalkaasi maxay tahay shacabka Soomaaliyeed marka koobaad oo hambalyeynaya dadaalka ay sameeyeen ayaga iyo mas'uuliyiintooda dowlad goboleedyada ama haadeen ama mas'uuliyiinta dhaqanka ha ahaadeen ama xildhibaanada la socota ha ahaadeen federaalka horta waa inay hambalyeynayna ilaahay in garansiiyay cadowgiina inaad garataan xabadu ku ridaan waa u mahad celinayna ciidamadayna Soomaaliyeed oo inta ula sii dhawaataan oo abaabulka dadaalka aad sii badisaan bayna ku xiran tahay qaranna ma jiri karo hadaan nabadi jirin dalkayga waa barwaaqada lama soo bixi karno qarannimadeeduna ma soconayso dawladaha adduunka aan anagu 100 jeer dhaqaale ahaan iyo awood ahaan ka sareeyayna waa ka sii hoos marayna hadda meesha ka sii hoos marayna hadii cadowgaas caloosheena ku jiro waana kuwaad aragteen waa wiilka yarka qaawan oo qoriga akaga la ordaya iyo midka yarka la baray xoogaa yaga shaashkada intuu isku xiro dhulka galiyo inuu qarxado waa nimanka aryanaysa nimanka raba asaagii inay ka reebaan oo 1000 sano ama 100 sano dib inay celiyaan maalin waxaan insha Allah rajaynaynaa aan ayagana iska saarno qarannimadeena inaad si fiican lugaheena ugu istaagno khayraadka barwaaqadeena la soo baxno shacabka Soomaaliyeed ay ku noolaan sida shacabka Sacuudiga iyo Kuwait ay ku nool yihiin ilaa ka barwaaqo badan waayahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay guud ahaan dawadayaal intaynu ku soo gabagabeynaa waraysigan gaarka ah waxa martii inagu ahaa afayeenka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdullaahi Cali Canood kulan xiga inta dib isku arki doono nabadgelyo afayeen waad mahadsantahay mahadsantahay